wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya oo u safray dalka Koonfur Afrika madaxweynaha maamulka Jubbaland oo boqolaal askar ah kula hadlay fulinta dagaal ee Jubbada Hoose ajaanibta ka barbar dagaalanta al-shabaab oo la sheegay inay wajahayaan xaalado adag kala taabacsan Somaliland iyo Puntland oo maanta madaafiic isku weedaasaday gobolka Sanaag samay oo iscasilaad ku dhawaaqday wanaagsan Ramadan Kariim dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u safray magaalada Pretoria ee caasimadda dalka Koonfur Afrika madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa halkaasi kaga qayb gali doona xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Koonfur Afrika Matamela Ramaphosa oo ku marti qaaday xafladiisa qaar ka mid ah madaxda caalamka madaxweyne Farmaajo ayaa sida dawladda Soomaaliya baahisay intuu uu ku sugan yahay dalka Koonfur Afrika wuxuu kulamo duceysi la yeelan doona hoggaanka dalkaasi iyo madaxda kale ee dhigiisa ah ee kaga qayb galaya munaasabadda isagoona kala hadli doona danaha wadajirka ah ee kala dhaxeeya dalkeena sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa u kurgalaya xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Koonfur Afrika iyo caqabadaha ay wajahayaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa boqolaal askar kula hadlay furinta dagaal ee Jubbada Hoose si gaar ah deegaanka Baarsanguuni isagoona sheegay in howlgallada sii socon doonaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay ku hoyday deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose oo qiyaastii 50 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo halkaasi oo ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo horay halkaasi uga wareegay ururka al-shabaab ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose isagoona intii uu halkaasi ku sugnaa kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dadka deegaankaasi oo uu dhammaan kala hadlay xaaladaha ammaan iyo mid nololeed ee ka jirta deegaanadaasi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay sugidda ammaanka deegaanada iyo guud ahaanba Jubbaland culays badan bay shabaabkuna keenaan iyo nimankan aan la dagaalamayno annaguna waxaan isku daraynaa bishii oon cibaadaysano iyo iyaga oon iska caabino iyo weliba iyaga oon iyaga doonana haddii la haydhaah oo aan iyaga weerarkooda iyo wixii annaga weerar celis aanaa noqonin kuwa sugay annagoo had iyo jeer dhaqaaq kale aan samayno waanan aad baan ugu faraxsanahay inaad roondar aad u dheer gashaan laakiin waxaa iman doonta mid intaynu tagna aynaan ka soo noqon doonin haddii la haydhaah oon horey u soconno taasaa noo noqon doonta guul haddii la haydhaah waayo in badan hadda intii roondar dheer la sameeya dib loo soo noqdaa oo socodkaas baraha badan baan gallaa waan rajaynayaa insha allahu socod badan iyo hawl dheer oo kale inaan geli doonno haddii rabadaantu inaga baxdo aan isku tashan karro oo aan degi karro oo maanta ciidan Soomaaliya kaliya idinkoo aad degan tihiin oo wax Soomaalida tijaabo u noqon karaysa ku dayasho fiican bay u tahay iyadoo maanta cid idin taageeraysa cid kaloo meel kale inaga tiba aynay jirin inaan anagu degannahay kaamkanaga oo furinta intaa leeg 70 kiiloomitir ay idinku soo sukayso amisom iyo cidda kale idinku dhow in maanta halkaan la degan yahay waliba ilaa 50 kiiloomitir oo batrool aad samaysaan hore u sii gudubtaan maalin walba ilaa 30 kiiloomitir oo kale oo wax sharaf iyo guul iyo Soomaalinimada iyo mid walba u fiican waxaan rajaynayaa markaa inaan shaqadiina sii lama laabtaan haddii ilaahay yidhaahdo aanan isku dayno isku tashiga aan samaynayno iyo howlgalka aan ku jirro insha Allah inuu noqdo mid aan hore inagu uga sii dhawaano hore u sii qaadno jaanibta ka barbar dagaalanta dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la sheegaya inay wajahayaan xaalad adag wargeys ka soo baxa waddanka Kenya oo lagu magacaabo The Star ayaa waxa uu daabacay in dagaalamayaasha shisheeye ee ka barbar dagaalama al-shabaab ay la kulmaan niyad jab weyn taasi oo ay ugu wacan tahay sida ay al-shabaab ula dhaqmaan waxa uu ka soo xigtay warkan ilo wareedyo military dagaalamayaal ka soo goostay al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ajaanibta la jooga al-shabaab lagu soo oogo dacwado been abuur ah mararka qaarna la geeyo furimaha hore ee dagaalka si loo tijaabiyo daacadnimadooda waxa ay u isticmaalaan Kenyaanka iyo ajaanibta kale ismiidaaminta iyo ciidanka lugta ama waxa ay ku dilaan shirqool markii ay uga shakiyaan in ay sirdoon cadow u yihiin ayuu nin ka soo goostay al-shabaab waxa uu u sheegay ciidanka Kenya wargeysku waxa uu sheegay in dhalinyarada ka soo laabatay al-shabaab ee warkan laga helay ay badankood ka tageen magaalooyinka Jilib iyo Bu'aale oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee al-shabaab dilkii loo geystay hogaamiyaal saamayn leh oo ka soo jeeda Kenya ayaa walaac ku abuuray xubnaha al-shabaab ee jooga Kenya iyo kuwa Soomaaliya waxaa jira
walwal qabsaday kenyaan ka tirsan al-shabaab wixii ka dambeeyey dilkii axmed iimaan sida uu sheegay nin ka soo goostay al-shabaab axmed iimaan bishii maaj ee sanadkan ayaa lagu dilay bu'aale kadib duqayn uu maraykanku fuliyey axmed waxa uu ka mid ahaa hoggaanka al-shabaab ee ka soo jeeda kenya waxa uuna talooyin xirfadaysan ku lahaa weerarro ay al-shabaab ka fuliyeen kenya oo galaaftay nolosha dad badan geeridiisu waxa ay yaraysay mooraalka dagaalamayaasha kenyaanka ah ee la jooga al-shabaab waxayna yaraysay kuwii ku biirayey ayuu the star ka soo xigtay ninka ka soo laabtay al-shabaab ee aan magaciisa maqaalka lagu sheegin dhowr kol oo hore ayaa al-shabaab waxa ay dileen dagaalamayaal ajaaniba oo muddo ka tirsanaa qaarkoodna ay madax ahaayeen kuwaas oo ay u shakiyeen in ay basaas u yihiin dowladaha ajnabiga ah ee ay dagaalka kula jiraan iyo dowladda Soomaaliya sidaas oo ay tahayna al-shabaab wali waxa uu dagaalama ajaanib ay ka go'an tahay qadiyadda howlgalka ciidamo kala taabacsan Somaliland iyo Puntland ayaa maanta madaafiic isku weedaarsaday deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waxaana saacadihii ugu dambeeyay xiisaddan laga dareemayay deegaanada ka tirsan gobolkaasi Umar Maxamed Soomane ayna faahfaahin inkastoo saansaan iyo xiisad colaadeed oo u dhaxaysay ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Somaliland 24 saac ee ugu dambeeyay laga soo sheegay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag haddana wararkii ugu dambeeyay idaacadda kulmiye ay ka helayso deegaano ka tirsan gobolkaasi gaar ahaan goobiya ay isku fadhiyeen labada ciidan ayaa laga soo sheegayaa in iminka laga maqlayo hubka culus oo ay adeegsanayaan ciidamada Puntland iyo Somaliland iyadoo dadka deegaanka ay bilaabeen in ay ka barakacaan goobaha colaadu ay ka taagan tahay deegaanada iminka hubka la isku weydaarsanayo waxa kamid ah degmooyinka Yubba iyo Hadaaftimo oo gobolka Sanaag ka tirsan halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland ay isugu urursanayeen hubkan oo ah mid goosgoosa ayaa u muuqda mid laba dhinac ay isu diyaarinayaan dagaal toos ah oo ka dhaca gobolka Sanaag xilli magaalada Baran ee gobolkaasi Sanaag ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka Puntland uu hogaaminayo wasiirka amniga maamulkaasi Cabdisamad Maxamed Galan Somaliland ayaa toddobaadkan bartamihiisii waxa ay weerar ku qaaday deegaanka lagu magacaabo Damala Xarage xilligaas oo ay joogeen xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka Puntland gaar ahaan wasiirka waxbarashada halkaasna waxa la sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac ah uu ka dhashay ilaa hadda warar dheeraad ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in xaaladda dagaalka iminka ay u muuqato mid cirka isku sii shareeraysa waxaana wasiirka amniga maamulka Puntland Cabdisamad Maxamed Galan oo maalin sii horeysay uu u sheegay dadka deegaanka magaalada Baran in cadawga ku soo duulay ee Somaliland ay iska dhiciyaan talabadan ayaa qayb ka noqonaysa wararkii ugu dambeeyay 24 saac oo laga helay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag kuwaas oo sheegayay in isuhub aruusi ay sameeyeen ciidamada Puntland iyo Somaliland iminkan akhbaaraadka dibadda ra-iisul wasaaraha UK Theresa May ayaa ku dhawaaqday inay xilka iska casili doonto kadib isbuucyo ee wajahday jahwareer siyaasadeed oo ku aadan ka bixitaanka UK ee midooda Yurub Theresa May oo khudbad qiiro leh ka jeedisay aqalka dalkaasi looga arrimiyay ee lambar 10 ayaa sheegtay in si rasmi ah isku casili doonto 7 bisha Juun ee soo aadan May ayaa sheegtay in kastoo ay qabatay intii karankeeda ahaa haddana ka xun tahay inay ku fashilantay waxyaabo fara badan xisbiga ra-iisul wasaare May ee Kongareeska ayaa dhankiisa sheegay inuu rajeynayo in dhamaadka bisha Juulaay uu yeesho hoggaan cusub siyaasiyiin dhowr ah ayaa durbadiiba cadeeyay damacooda ku aadan qabashada xilka ay banaynayso ra-iisul wasaare May waxaana dalkaasi kamid ah xogayaha arrimaha dibadda ee UK ee haatan Jerry Hutton iyo xogayihii hore ee Boris Johnson